غزوة عشيرة أبو سفيان يا حوله ودال الرادعيني مركز شام بكسي سعود دقال كم بدر وحسبب وهابا الله يدهدا غزوة عشيرة أبو سفيان يا حوله ودال الرادعيني مركز شام بكسي سعود وبحصدي مركز هرو شام بو سو نقط كي وشام كسو نقونيي أي مسلمين توحي كنت لقى لأنني قافلة دا ما انت قبطان وأنا بحسنين وسو نقط كي أبو سفيان مركز وحوتي أور تربضا وحولبضا وضط لكن لا يدهدا عيدا يربى لسعودي سدن أفرتنية مالها سبي كتل مامان علماء السيرة وحان صدن أفرتنية كتبض waliba culimada siira waxay sheegaan yani xooluhu watay tiradooda qaarsi sheegaan waxay yiraahdaan xoolo lagu qiyaaso 50,000 oo diinaar bay yiraahdaan halka diinaar waa 4.25 gram oo dahab ah 4 gram iyo rubuc ayuu u dhigmaa halka diinaar 50,000 oo diinaar hadaa tiraahdo waa xoolo ilaa 212 kiilo oo dahab xoolo lagu qiyaasi weeyaan 212 kiilo waa laba jawaan iyo dheeraad waa xoolo aad u tiro badan intaas oo kiilo dahab ay gaadhayeen baa la yiraahdaa ilaa 1,000 awr bay ku sheegaan xoolo inta leegsiday waxa la yiraahdaa nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu dirtay sahamo u soo sahaminayay quraysh xoolaheedaasi xadiis saxiix waxa ku soo arortay in la yiraahdo بس ابن عمر إنه ها صهمة الدرية لكن مكوي هروها مسكوا ضمبوها الله أعلم على كل حال صهن كي يورركي مدينة يمادين شيء إنه ننكي أبو سفيان لورنشري وحاله يردن وضع وسود الدوية وصاصعده مركي وركاسيو نبي قوي عليه الصلاة والسلام نبي قوحه أمري عيدا كوحي ديارنا يصابحه وأي عيدا كان لو قمت لقلين إنه دجال قلي دونه يوها لو قلت لقل يا فرت كاننا مصدقانين يا أورطاس سفر كاو iyo xoolaha wadaan in la soo qabto sida daraadeed lama sugin saxaabadii mesela cawaaliga deganayd qabaa'il awsi khasraj bidahan inay dhanka deganayd ba guryahooda u badnaayeen saa daraadeed nabigu kaleey salaatu wasalaam wixii soo dhaqaaqi karayay ayuun buu yiri soo dhaqaaqa wixii dhadhawaaya marka meelahan joogay uun ba soo baxay baa la yiraahdaa ciidan kan soo baxay waxa la yiraahdaa ciidan tiradiisu aanay badnayn baa عكرمة وحشيجية نبغى عليه الصلاة والسلام لبنن وعدي بن الزغباء نكلا بس بن عمر نكلا لبضا إنه طليعة إنه بدر الصدري ويرقى في لدى يعني بالوركو ده نيسور رادية وإلا صار نقدين وركا كان لكن حديث ثابت وصحيح مسلم كي الباو حشيجية بس نكلا هذا إنه ها دليلكي أما جاسوس كي نبغى عليه الصلاة والسلام وركنوا شيجية سكستبها النقطة ور الله بابا يمي وشيجية عيدا كاسينو سودوي نبي عليه الصلاة والسلام وحمر كاسيس لا صوبها عيدا قارية صدح بقول إيو طبعا يسقال مالهاس سا إمام النووي شرحي سوكو شيجية صحيح مسلم كساسا كقرن بالرجينية رواية بخاري نوحي شيجي سابدعة 10 و300 صدح بقول يدورية طبعا صدح بقول يدورية طبعا صدح ذا بقول يدورية طبعا كاس بقول كمدي مهاجرين بيهاي انت كلنا وسيدا او شيغي انت كلنا انصار بهاين وسيدا روايه الزبير بن العوام اي شيغيس كتبت مراجع الرسمي marka la eego asxaabta magaca badriga ay uu soo aroray waxay gaarsiiyaan ilaa ugu badnaan 340 ayay gaarsiiyaan 340 waxay gaarsiiyaan rag baa la isku khilaafsan yahay hebel badri buu ahaa badri ma ahayn laakiin waxay u badantu 312 kaasi oo inay ahaayeen inta marka la tacyinaya hebel iyo hebel marka la isku qabtaa labadiiba ay ku qoreen laakiin 312 nin ayay ahaayeen muslimiinta meesha soo dagaal tagtay waxa la yiraahdaa 70 awr ayay wateen oo isaga daadagayeen 70 awr ay wateen sida ibn isxaaq uu soo arooriyo waxa la yiraahdaa abu lubaba iyo ali ibn abi talib iyo nabigu kaleey salaatu wasalaam hal mid ayay u kala dagayeen hal mid ayay u kala dagayeen saddex meelahaas baa day awrkiiba qof marka kolba xilli baa ay noqonaysaa xilliga qofkani fuulayay adhow ka daadagaya ka kala fuulaya adhow ka daadagaya ka kala fuulaya abu lubabi ali ibn abi talib marka waxay yiraahdeen ilaahay rasuulkiisa ween anagu waa ka maaranay adigu fuul waxay sidaan ilaahay rasuulkiisa daha fuulo idinku waxba rasuulka ilaahay la qaybsanina awre nabigu kaleey salaatu wasalaam awrka isagoo ha fuulo idinkuna lugayseen waxay yiraahdeen ilaahay rasuulkiisa adaan ku deynaa adigu fuul waa ka xadiidka musnad imaam ahmed ku qoran darajadiisu ugu yaraanay xasan tayadaani saxiix ba noqon waa ka nabigu kaleey salaatu wasalaam ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna an al ajr minkuma wuxuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam war labadiin horta igama xoog badnidin buu yiri midda kalena ajarkana idin kama maarmo يعني ماشي وآخرة لو ذرات عيني يا الدنيا الراد عيس ماشي المشي ربنا بيقول عليه الصلاة والسلام هذا ربطان إن أنا نروح فوش أنا ضايدنكو أشر كاشان أنا أشر كاسويا كان دوني يا أبونا بيقول عليه الصلاة والسلام مركا أشر كنا يدين كمان مارمو
أنا أجر كتجي مايو إذن كنا igama xoog badnidin buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam yani waxay tani tilmaamaysaa mujtamaca marka ay dareemaan qaa'idka iyo askarigu inay isku si wax u qaadanayaan inaan hunguri la kala badnayn inaan cidina cid tuhmaynin waxa fududaanaysa inay taacadu badato isaqbalkiyo kala dambeyntu inay badataan in ninka madaxdii uu noqdo qof la aamini karo oo maadaama uu arkayo askarigiisii inuu la naf qaybsanayo nin waliba macajanka ciidanka wata maca madaxweynuhu inuu markiisa fuulayo dadka una markooda ay fuulayaan oo qofna qof wax ka badsanaynin waxay taas keenaysaa dadku isku xidhnaantooda iyo inay dareemaan waxa kan in ilaahay dartii loo wada wado oo qofku markaa isna adduunyo ka dheeraado markuu arko dadkii uu madaxda ahaba ilaahay rasuulkiisii oo le awrka fuuli maayo idinku markiina fuula wuxuu dareemayaa qofkani inaan meeshan ciidan kale hijirin in janno la wada raadinayo idan isaguna awr fuulka waxba moodi maayo iyo haddii hantiyo dhami dhaafto waxba moodi maayo walidaalka baa ilaahay rususha markuu soo diraba rasuul walba waxa koowaad la yiraahdo iska fayd waxa kamida tuhmada aynaanu meeshan dhaqaale ka rabin wama asalukum alayhi min ajri bir rasuul ilay rasuul kasta marka la soo diro waxa la weeruhu dadka kuleeyahay waxa kamida wama asalukum alayhi min ajr wax hantiya iyo awoodaan idinka xoolahan idinkuma doonayo qadiyadatan xoolaha idinkuma doonayo marka ay dadka kale dadka wax wadale markuu qof dareemo inta kalena inaanay dhaqaale doonin xataa isaga hadii hunguri markii hore waday isna waa ka tanaasulaya oo iskaga tagaya walidaalka bay saxaabadu waxay u ahaayeen dad aan hunguri adduun aanu haynin markay arkeen rasuulkoodii hogaaminayay mowqifka uu ka taagay calayhi salaatu wasalaam adduunyo ayay iyaguna adduunyo meel iska dhigeen dhalinyaro ma ahayn rasuulku markuu caynkan lahaa konton iyo shan jir buu ahaa markuu leeyahay igama xoog badnidin awrkana علينا وإمسجر ونيران لباتن كوب حسابين بوبضنت يعني هذو بطة وانينون إسلام كمركو سودة واحد على مسجد شربوها ما تبن شربوها هي صدق طبعا كي سنة مكة وهلا يا بايم كينو صدق لا بتنشر ما لحاسي أما فريلات الشري يعني وحون شريلات تنشر كير مكة على شن يلا باتن كير أيا ربنا النبي قوشن يكونتن مريا إنه يرهدان يقول مركا يقعدوا فول مركا سنة بيقولوا لي جمال حق بدنيت أشر كنا يدين كما غني هي أنا كما مارما أشر كه إيدايا مركا يجانا نفولا ياهي وحلا إذا هذا علماء التاريخ سيشيء يعني ابن إسحاق بكسر بدون السنة ده مقالة ده وحمد حقصي دجيبال ده عبد الله بن مكتوم إنه دتك صلاة سيتوكيو ونن ندوراها ده بيتنا مركو مرة يبال ده الروحان مال ده ده مدينة فرتن ميلو شرته أيها ده ندبو حو صادري أبا اللبابة أو يدي مقالة دي مدح كنقو أمير إنه مقالة ده ونقضه نكاهرنا وحلا يدي دتك صلاة توكي تارينا waxay cadeynaysaa culimadu yiraahdaan deegaanku inaanu madax marnaba ka maarmin mujtamacu yani madax la'aan inaanu noolaan karin walow safar ku jiro ama dagaal ku jiro ama nabad ku jiro ama xarb ku jiro wuxuu doonaya ku jire in loo baahan yahay mujtamacu mar kastaba inuu kala dambeyn yeesho Abu Sufyaan war baa gaaray dhanka kale markaynu eegno muslimiinta iyo ciidankoodii markaynu inta ku dhaafno Abu Sufyaan war baa gaaray oranaya in lagu soo baxay oo muslimiintii oo ciidan inay ku soo baxeen أبي سفيان مركا طريق خلا يوم مريبا ليلي سجونا نين ليلى ضمضم بن عمرو الغفاري نو كريست وحو كريستي إنه قريش ورجية علماء التاريخ روايات بدن وان حق بدن لهين بيسوء روريان ومسائل كم خصابسا أحي شيئا إنك كان أبو السفياني عيدا كإنه هرس عني كلبه ويسوي إيه إنه عد ري إنه طريقة آمين وأيه ودبتنا وصهنها dabeetana nin inuu ku soo baxay meel jooga oo labada qolob ee heshiis u ka dhaxeeyay saxaabada iyo quraysh ba heshiiska qoladan muwaadacaadka iyo xilfiga lala galay kamid aha ninkii inuu ku yiri warina waxaad qoonsato meelahan ku aragtay may cidna ma arag buu ceelkaas laba nin awrtoodii intay joojisteen weel ka dhaansadeen oo ka cabeen oo ka tageen Abu Sufyaan waxay yiraahdaan in aad u maskax badan buu ahaa oo soo cararay meeshii buu yimi wuxuu eegay bay yiraahdaan awrtii meesha fadhiisatay saaladeedii ayuu burburiyay bay yiraahdaan saaladii buu laftimireed ka dhaxlay bay yiraahdaan markaas wuxuu yiri tani waa la calaa'if Madiina waa awrtii Madiina buu yiri Madiina xoolaheeda loo dhigaa laftimireedkii waxa kan awr daaqday ayuu ka dareemay inaan awrtii dadka reer baadiye ee iska daaqaysay dhirta qura inaanay ahayn buu dareemaa baa la yiraahdaa ala kulli xal waa qisaska ay wariyaan asxaabu siira si kasta ha noqotona ninka kani wuxuu helay war sheegaya inaanay jidkani aamin ahayn dabeetana jidkii uu gooyay oo wuxuu u wareegay badda xageeda bahar al-ahmar ka dhinaciisa badda cas dhinaceeda wada ah ayuu u talaabay inuu Madiinaba xagga ka wada maro oo dhinacaasi ka wareego ayuu ku tashaday
وحكالو دري نينكاسي ضمضم ابن عمرو لا يدهده الغفاري waxaanu diray ninkaasi quraysh u tago waxa tidhaahdaa xoolihiina hadda difaacanaysan kala iyo difaacda ibn abbas iyo urwa ibn zubayr baana waxay sheegaan islaantii caatika bint abdul muttalib la oran jiray nabiga eedaw ahaydna waxa la yiraahdaa way riyooto waxay ku riyootay quraysh oo nin istinfaar weydiisanayo war soo yaacay uu leeyahay oo dabatana dhagax weyn uu kaga soo tuuray jabal abu qubays buurta dhinacan ka xigta oo dhagaxii intuu burburay magaalada Makka uu galay oo guri kasta uu wax ka dumiyay oo kale waxaana yiraahdaan riyadaasi waaba sababta isku qabteen baa la yiraahdaa Abbas iyo Abi Jahl baaba dhibi ku kala dhexmari gaadhay baa la yiraahdaa ilaa uu ka yimi laakiin isnaadka qadiyadaas ku soo aragtay waa isnaad iska daciif waayo waa mursal laakiin ده مرسل كان ضعيف في سنة كأنتي سكلا وحسن بيدادان ابن إسحاق الله يو رجع إرساليين تلقى قرسينيو لبضا مرسل دي اللي سوق يوم يسحوتشين يا ند والله الماما هدي ما لها كساق على بحنا يكلا قديسين سكستها النقطة وحلا يدادا نكى ضمضم هذا مقالة دايمي علماء التاريخ وحي شيئان ضمضم قابون حدين بضم بيسوء روريان يدونه ومقالة مركوسيو قليه أو كيبو كورا حاجة كلاو رجعي أو سانك صوت شري أو مرض وسك صوت توري أو يعني بلايا شيء نوعه سيبدانتي سوى تلمامتون هيا إيدية الله هي كعيدة سجور رورا يوم ركاسيو قايلين يوم عاصو كلو صوق علي ولا اللطيمة له لا اللطيمة دوا حوالها انسدا طيب كي وحاسي يعني تجارة دي نور سوق على يسقوله أيو صوق علي قريش ورك كان صاعق أبو كون قدام مركه ورا يقادن كرواية وايو hore way u awgaayeen dariiq loo yara galgalay iyo warar caynkaasiya iyo damunawashad iyo roo leebab la isku turturiyo waxaasiye laakiin ma islahayn ba muslimiintu xoog inta ku soo baxan bay xoolihiina qaadi doonaan kumay talagalin midda kale xoolaha kan waxay ahaayeen baa la yiraahdaa xoolo aad u tiro badan leh oo nidaamkoodii ribowga marka lagu dhaqo waxa la yiraahdaa hadii la yiraahdo 50 kun oo diinaar buu siday de faa'iidadiisu 50 kun kama yaraanayso ugu yaraan waa 100 kun oo diinaar waa dhowr 100 kun oo kiilo dahab waxay u arkayaan inay khasaare aad u badan tahay quraysh markaa waxay isku urursatay inay xoolaha kan dhiciso quraysh waxay isugu tagtay xoolahan sida ay u dhacsan lahayd inay samayso ciidan iyo rag iyo hub iyo waxay haysay oo dhan way sukeentay waxay kaloo u aragtay arrintan inay tahay yani isla weynideedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii iyo meel lagaga dhacayo in kooxdii yareyd ay magaalada ku dhibeen ay yaacday ee baxsiga ku baxsatay quraysh ba tijaaradeedii ugu waaweyneyd inay qoladaasi hunguraysaa inay u tahay markaa nimanka kan yani wax la duleysanayo kale quraysh dulaysi la duleysanayo kale bay u arkeen inta aanay kaba fakirin qadiyada tijaariga oo yani xoolaha intaan leega la dhacayaba intaanay qiimeynba waxay u arkeen ba meelka dhac weyn inay ku tahay sharaftidii quraysheed in maanta waxeedii la boobo saasi daraadeed bay waxay cid haysatay oo dhan bay soo ururisay waxay yiraahdaan ninka hatta dib isu yara dhiga ama siraaraha odayada quraysheed baa u tago la canaanto yani waa lagu qasba dagaalka in loo soo baxo riwaayadka saxiixi waxay ku soo arooreen ciidan kun gaadhaya inay ku soo baxeen ibnu isxaaq biduuni sanad isagu wuxuu ku soo saaraa 950 nin meelahaas inay haayeen laakiin waxa la yiraahdaa ciidan kun gaadhaya way haayeen bal culimada taariikh qaar kamid waxay soo saaraan ilaa 1300 inay marka hore ay soo baxayeen haayeen si kastaba ha noqotee ciidanka si loo macnawiyaadkiisa loo xoojiyo loo dhiirigeliyo ciidan qora lama saarin ee xataa waxa la soo saaray baa la yiraahdaa dumarkii heesi jiray iyo kuwii durbaanka garaaci jiray iyo wixii oo dhan ayaa la soo kaxeeyo iyadoo durbaanka la tumanayo oo la heesayo ayaa la isu soo baxay baa la yiraahdaa waxay yiraahdaan si ciidanka loo dagaal galiyo aan loogu baahan kharash xataa maalgelinteeda waxa qaatay bay yiraahdaan nimankaasi quraysh odayadeedii waaweynaba maalgelinteeda qaadato maalina 9 neef u qasha maalina 10 neef u qasha laakiin ciidankaasi markuu dhexda marayay baa la yiraahdaa ayuu Abu Sufyaan hadana war kala soo diray oo uu leeyahay badbaadayo xoolihii waan baxsiiyay hal celiya ciidanka dabeetana warkii baa yimi waxa la yiri hal celiya ciidanka Abu Jahl baa diiday wuxuu maay sharaftidayadii ba waa dhimatay iyadoo intaanu tagno aanu jabino oo ku gal qalanno oo hablu noogu heesaan oo warkayga carabi gaadho warkayga carab meel kasta uu gaadho mooyaane noqosha naga dheer buu yiri waxa la yiraahdaa al-Akhnas ibn Shariq nin la yiraahdaa yiri warisaani simaha ciidanka hal celiyo waa la diiday markii la diiday isagu wuxuu yiri tolki reer banu Zahra wuxuu yiri reer banu Zuhra
إن عليا بيقول أنا ونك لا دجال قال مايه إلا صدح بقولون عيدنا أيون كاسي دبولا نقضي بالله هذا كونكي عيدا كل الدواء دوم بمشى تنصاص صعدي ninkan wuxuu yidhi anaga dantaydu waxay idin inuu xoolahayga ilaashano xoolahayga in haddii noo badbaadeen dagaal uma baahnin ee waan noqonayna reerkan xaliif buu waliba lahaa bay ku sii tilmaamaan laakiin maalintaa wixii ka dambeeyay baa la yidhahaa magac iyo maamuus buu ku yeeshay oo taladiisa dambe lama diidin waayo qorashisay u jabtay iyo suutolkii meesha uga badbaadiyey ayaa si laba isyeelanay waayay noqday marka waxa la yidhahaa reer banu zahra waxyaabahay ku caanka ahaayeen badar ninkagama dhiman baa la yidhi iyagu raggoodii oo dhamme way kala noqdeen sidii buu ciidankii ku soo waday Abu Jahl habarqaba ahaa waliba Abu Jahl meeshii markuu soo degay wiilashii uu biyaha u soo dirtay dhaanka ciiday u soo dirtay khadamka ciidii u ahayd qaar ka midana muslimiinta aba gacanta ku dhigay oo weydiiyay oo kuway garaacayeen markay runta u sheegaanna way garaacaan markay beenta u sheegaanna way daayaan oo nabigu kula war iska daayay markii dambe uu weydiiyay ciidanka iyo tiradii musnad imaam Ahmed حديث صحيح كساروري إسناد كصحيحة ولا ويدية وحي وشيغان مالنا إن طبعا لقلوا مالنا سقالنا في القلوا دبيتنا النبي مركا وحده القوم 1000 كل جزور ل100 وطبعه وإلا كن مركا مردي مالنا طبعا لقشوا نيف كي جيلي ونكسني وبقلبا عيدا كالقوة ذكرياي مسلمين تي وركا قلنا لقبطي وحي شاكتي قريش عيدا كيدينين وهل كان صوص عضه أورتينا يا وقالنا إن إذا بحثنا أبو سفيان كحي لكن لقى مرة ما يصير مسلمين واحد شعلادنا إذا هذا وحنو أبو سفيان بانو كنمي يا عيدنا إن الشجان ما يخربنا واحد صلاحين ده وصحن كي حالها ده بتنوع كقرآنكم مسألة ده صورية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم بإلهية ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يعني إن أي مسلمين تقار كمدي عليان قافلة يرى حولها هنا إلى كل مانه تكويس وتلقين إلى عيدا كننا إن إلى دقالمان وحكى لهم ماشي يلا يغنى بيعدي إنه هرو صوم مرة أنصارته أي نبي قال لك شيء عليه الصلاة والسلام وحي قصة ليسني إن مقالة نبي قوي عليها لكن ده بدأ هدي الله بحي هالكاسي كمي بنود ده كمي يشرين خارج المدينة سيدا وجد بقى حلا عيدا مدي الراية هراء بدر كه الرياء قاعدة ونبي قدير يورد مهاجرين بيهاجرين وقال ده قريش ودراء وين عيدا مدو دي وحود الله جهر جين يورد مهاجرين بيهاي هاتنا وعيدا تربضن بماشى مريا أو أنصاري وتربضنت تبتنا النبي عليه الصلاة والسلام مركو أقادي إن أبو سفيان يو حوله ستجان وحلا يسهيانا يتهاي قريش عيدا كيدي عيدا كانوا حكوسوك حيينين يا هيد ان قريش حوله هذا لا سو قبطه ارنكينا وحس كبدلين ايو نبي وحو لا شيري marka saxaabadii ashiru alayya buku cali daynu qaadan riwaayada khabarka ibn isxaaq ee sanadka saxiixa ku soo arooray wuxuu leeyahay dadkii buu nabigu la tashaday alayhi salaatu wasalaam dabeetana abu bakr